الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد waxaan baraarujinaynaa walaalayaal arrin baryahan soo badatay oo aan wanaagsanayn diinta uma fiicna dhaqankana uma fiicna mustaqbalkana uma fiicna waxa weeye sawirada xaasaska iyo dumarka iyo daayarta oo lagu baahinayo baraha bulshada oo runtii laga yaabo dadka qaarkood inay u jeedaan inay ama isfaaniyaan ama xayeysiiyaan xaawalaydii iyo dumarkii sideedabana labada qof arrimaha iyaga u gaarka ah waa inaanay banaanka soo dhigin waxay keeni kartaa runtii siyaabo kale oo qalada in looga faa'iideysto ghayrana wax la yidhaah baa jirta ama hinaase inuu qofku yeesho aad iyo aad bay muhiim u tahay marka arrintaa baryahan dambe dhalinyaradu mararka qaarkood iyagoon ismehersanin baaba isa soo qabqabsadaanoo hore usoo fadhiistaanoo markaasay isticmaalaan sawirada marna xaasaskii baa lagu isticmaalaa marka haddii qofka ilaahay xaaskiisa u barakeeyey ama oorida ninkeeda alla u barakeeyey waa inay ilaahay ku mahadnaqaano ilan iliyo inkaar iyo aafaadba way jiraane sawiradan baraha bulshada xaaslaydu la soo taagan tahay ha la iska daayo ama da-yartu intaana isguursanin aad iyo aad baa u mahadsantihiin jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum waana aynu isku leenahay allana ha inagu anfaco wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu